السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلام دمانتي سادو دنتهين أقيارتا ماشا كوضا وحان إذن رجيني إنا عافماد قبتان وحان إذن كسلام يا سلامتي إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحان إذن كعود سنة مركلة إنا جانالك سبسكرايب قريسان لايك وقالكنا شير دهدان حدي أد هوري يلجوكتي وقالك لايك قري سينا شير قري حدي أد يقول عصبتاي دقيستو فضلا wayga codsi channelka subscribe saar muuqaalkana sii share garee like-tana saar wixii fikir ama dhiirigelina qaybta commentiga igu rab insha Allah. waxaan idin rajeynayaa inaad dhammaantiin iyo caafimaad qabtiin. waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo faa'iidada uu leeyahay salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo qiso dhexmartay wiil iyo hooyadiisa. qisada sidii tan ayay ku bilaabanaysaa. waxa ay leedahay haweeney ayaa waxay dhashay hal wiil wuxuuna ahaa saqraan ama kuwa isticmaala maandooriyaha. ilaahay iyo hooyadiisna caasi ayuu ahaa. waxay fartana ma uusan samayn jirin iyo wax wanaag ah weligiis ma uusan samaynin. xumaantana waa uu ku dhaqmi jiray. sarqaanimadii iyo macaasidii kadib isaga oo sidii ah ayuu dhintay. hooyadiis aad ayay ugu maragootay ama uga naxday sida uu ku dhintay isaga oo ku tala jirin in uu soo hanuuno ayuu dhintay. aad ayay u jeclayd in uu wiilkeedii mar un riyo ku aragto. deedna habeenada ka mid ah waxay riyo ku aragtay wiilkeedii oo qabriga lagu cadaabaya. hooyadii waxa ay ku sii batay murugadii waxayna ku adkaatay in ay noolaato murugo aawadeed. deedna hooyadii muddo kadib ayay riyo ku aragtay wiilkeedii oo xaalad nimco ah, farxad iyo reereen ku jira. markaasay weydiisay xaaladiisii. markaasay ku tiri, wiilkaygiiow, waxaan riyo ku arkay adiga oo qabriga lagugu cadaabaya, maxaa isbedelay? wuxuu yidhi, hooyo, nin caasi ah ayaa kasoo tegay magaaladiisii wuxuuna arkay qubuurihii aan ku jirnay. markaasuu eegay qubuuraha oo ka fikiray qabriga iyo soo bixitaanka. wuxuuna ku cibro qaatay meydadka qubuuraha ka buuxa. deedna wuxuu ka qoomamooday dembigiisii wuxuuna toobad keenay. deedna wuxuu ilaahay u ballan qaaday inuusan dib dambe ugu noqon doonin xumaantii iyo fasiqii. deedna malaa'igta samada ku sugan way ku faraxday toobadkeenkiisii. dabadeedna markuu toobad keenay ayuu wax yar ka aqriyay aayadaha qur-aanka kariimka ah. markaas ayuu 20 jeer ku saliyay nabigeena Muxamed salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayh. deedna wuxuu yidhi, ilaahow, salliga nabiga ee aan aqriyay ugu dambi dhaaf kuwan qubuuraha ku jira oo aan ka mid ahay anigu. deedna waa noola qaybiyey abaalkiisii salliga uu ninkaasi ku saliyay nabigeena Muxamed sallallahu alayhi wasallam. deedna sidaa ayaa noogula dambi dhaafay. waxaana hadda ku jirnaa xaalad aad iyo aad u qurux badan ee nimcada farxadda ah ku laran reereen iyo barwaaqo. hooyo macaan waxa uu leeyahay, hooyo macaan waxaad ogaataa salliga nabiga lagu saliyo sallallahu alayhi wasallam waa arrin qulubta ku jirta. dambiyada qulubta ka buuxa lagu dhaafo, la isaguna naxariisto kuwa nool iyo kuwa dhintayba. hooyo waxa uu leeyahay, ku dadaal salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. muuqaalkan waxa aan ka foganaynaa ama aan uga tusaale qaadanaynaa in uu leeyahay faa'iidada salliga lagu saliyo nabi Muxamed sallallahu alayhi wasallam. halkii mar aad ku salidaa waxaa u qaabilsan malaa'ig ama malag u geynaya nabi Muxamed sallallahu alayhi wasallam oo welibana sheegaya magacaaga oo dhahaya waxaa kugu soo saliyay nabiyow hebel iyo hebel. kadibna waa lagugu dambi dhaafayaa. isku day walaal inaad maalintii ugu yaraan xataa aad ku salido nabi Muxamed sallallahu alayhi wasallam 10 jeer, waayo waxaa ku jiro nimcadaada dambe iyo aakhiradaada
waadna ku badbaaday biidnillaah. waxaan idin leeyahay tan iyo kulanti dambe, wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. isku day inaad muuqaalkan u faafiso walaalka, waa intaasoo kuwaana qaataa oona ajir aad ka heshaa. isku day inaad sii sheer garayso, like na saar biidnillaah.